السلام عليكم saaxiibayaal waa Cabdullaahi Cabdi waxaan ka socdaa Redigal LLC muuqaalkan maanta wuxuu ku saabsan yahay xakinta ay waaxda arrimaha dibadda dalka Mareykanka ku soo rogtay bixinta fiisooyinka dadka ka soo jeeda 75 dal ee hore u dhaqan galay 21kii January 2026 Redigal LLC waxay isku diyaarinaysaa inaan gudbino ama inay gudbiso dacwad ka hor imaanaysa xakintan sharci darrada ah ee lagu sameeyay dadka ka soo jeeda 25 dal waxaanu ku matali doonaa macaamiisheena dhammaan macaamiisheena ka mid noqon doona dacwadayaashan class of actionka dacwad wadareedkan waxaa loo gudbin doonaa maxkamad ku taala ama maxkamad federaal ah oo ku taala dalka Mareykanka waxayna ku taala District Court of Columbia sidoo kale waxay go'aamin doontaa maxkamadda farqiga u dhexeeya dacwadii hore dacwad waxaa jirta hore aan gudbinay oo the same thing ahayd tan waa wejigeedii labaad taasoo la magac baxday story fast tram in mataqaanaa garsooruhu oo mataqaanaa uu ku go'aamiyo farqiga u dhexeeya labadaas dacwadood waxaa muhiim ah 3 shuruudood si aad uga mid noqotid inaad buuxisid dacwadayaashan ama ka mid noqosho dadka rajeynaya inay ka mid noqdaan number 1 waa inaad mataqaanaa leedahay codsi fiiso oo socdaal oo ku salaysan shaqo ama family based like waa ina hore mataqaanaa applicationkaaga ama lasoo approve gareeyay qof mataqaanaa family based ah categorigiisa ama yani employment based inuu ahaado qofka ka qayb qaadanaya dacwadan taasaa shuruudda number 1 ah number 2 waa qofku waa inuu case number haystaa which means mar haddii aad dacwadaada hore aad gudbisay يعني كيسكا هوري dhamaystirtay kadibna lagu soo aqbalay waxa lagu siinaya case number kaasoo ku saamaxaya sidoo kale inaad xareysay DS260 aadna haysato confirmation page-kaaga DS260 sidaa darteed haddii intaas ay ku dhamaystiran tahay dacwadda waa ka mid noqon kartaa labadaas qodob saddexaad waxa weeyaan waa inaad mataqaanaa ka qaybgelin dacwad kale sidaad ogtihiin dacwad kale jirtay taasoo mataqaanaa macaamiisheena horey uga qayb galeen anaga aan hore wadnay dacwadaas oo ah story fast tram haddaad ka mid tahay dacwadaas story fast tram waxa waaye waa kama qayb gali kartid dacwadan horey mataqaanaa taas oo ahaatay kuma banaan marka dacwadan ka qayb gashid sidoo kale waxaa muhiim ah inaad la wadaago taariikhyo aad u baahan tahay inaad ka faa'iidid ama aad la socotid barnaamijkan isdiiwaangelintiisa waxay ku egtahay dacwadan isdiiwaangelinteeda waxay ku egtahay 26 June 2026 haddii June 26 dhaafto isdiiwaangelinta يعني كوما سامحي دونت ناس ديبانجليسي وإلا يوحد هستا جون لحلا تنكينا صادقوا من نقد دعوة ديش سيدو كale راديق الله LC waxay gudbin doontaa dacwadan ama ay xareen doontaa maxkamadda gudbin doontaa waa July 10keeda 2026 waxaan gudbin doonaa July 10keeda 2026 sidoo kale waxaa ogeysiis muhiim ah inaan idin la wadaagno waxaa jira dad ka soo jeeda 40 dal oo si qaas ah baan loo saaray haddana sidoo kale ka mid ah 25 dal mataqaanaa pause kala saaray kuwaas wadamadaas oo ka mid ah Soomaaliya wadamo badan Suudaan marka haddaad ka soo jeedo wadamadaas micnaheedu ma dacwadda inay ka saarayso banka meesha kaliya waxyaabo caqabado qaarkood way kaaga saari kartaa meesha ku hortaagnaa dacwadaada hortaagnaa laakiin micnaheedu waa inay banka meesha ka saarayso so laakiin still waa ka mid noqon kartaayo waa yani dadka dacwadda ka mid noqday waad noqon kartaa fursadaas waa haysataa ogeysiiska labaad waxaa weeyaan dacwadan wadareed sida dacwad kasta oo kale lama hubo in mataqaanaa lagu guuleysan doono dacwad walbo waa lagu guuleysan karaa ama waa lagu guuldareysan karaa marka micnaheeda maahan 100% dacwadan ku guuleysanayno Radigal LC kuma siinayso garanti ah 100% dacwadan ay guuleysanayso dacwad walbo waxaa muhiim ah dadka dacwoonayaan mataqaanaa ka mid ah ama dadka magacyadooda meesha ku qoran dacwadayaasha ka mid ah inaan u weydiino garsooraha gargaar oo mataqaanaa in case koodaan mataqaanaa hore loo dhaqaajiyo ama u socdo in la siiyo sidoo kale waxaan u xaglin doonaa guud ahaan in meesha laga saaro pause-kan ama aanu weydiisan doonaa codsi garsooraha inuu meesha mataqaanaa ka bixiyo guud ahaan xakintan laakiin muhiimadda waxa weeyaan qof walbo dacwadda ka mid ah in mataqaanaa si qaasatan mataqaanaa garsooruhu uu taageersan doono sidoo kale dacwad kale jirtay mataqaanaa oo anaga aanan gudbin actually laakiin New York State of New York ka socotaa taasoo mataqaanaa ay qosayso sidoo kale dacwadan oo kale
waxaa magaceeda la dhahaa Clinic Fast Robio. Micnaheeda haddii lacala dacwadan horey u jirtay, haddii meesha ay ka saarto xakintan, still dacwadani ma burinayso sharcigeeda, waa way soconaysaa. Ama madaxweynaha lacala hadduu isbedelo oo meesha mataqaanaa uu ka saaro joojinta dhama ama xakintan hadduu meesha ka saaro, heshiiskan sharcigan ama heshiiskan dacwadan sidii buu u socon doonaa. Sidoo kale qarashaadka qof walba kaga bixi karo waxaa weeyaan $2,000 guud ahaan keiska inta ruux uu ka kooban yahay. Haddii keiska uu ka kooban yahay 3 ama 4 ama 5, waxaa laga rabaa $2,000. $1,000 oo marka u horeysa uu bixinaya qofka, $1,000 mataqaanaa marka waddanka imaado uu bixin doono. Sidoo kale fadlan xusnoo waxaad mas'uul ka tahay markaad Mareykanka timaadid ama markaad imaatid aad soo gasho dalkan ama fiisaha lagu siiyo in mataqaanaa $1,000 oo harsan inaad mas'uul ka tahay inaad bixisid. Haddii aad mataqaanaa aad su'aal qabtid, fadlan website-keena booqo frequent question ask waad ka heli doontaa wax badan oo mataqaanaa kaa xaqibtiro. Haddii aad is leedahay su'aashaada waxay u baahan tahay si qaas ah loo mataqaanaa loo xaliyana waad nala soo xiriiri kartaa. Si toos ah nala soo xiriiri kartaa. Aad baad u mahadsantihiin dhammaantiina.